السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad dhamaan saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan. Magacaygu waa Cabdikariin Maxamed. Channelka daawanaysid ama page-ka daawanaysid waa Dr. CK. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago ama aan kaga hadlo wax loo yaqaan xasaasiyadda. Marka muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waxa ay tahay xasaasiyadda, waxa sababo, waxyaabaha si gaarka ah u kiciyo xasaasiyadda, iyo sidoo kale dawooyinka ugu fiican ee loo isticmaalo xasaasiyadda. marka hore haddaan qeexno waa maxay xasaasiyad. xasaasiyadda waa marka uu difaaca jirkeena uu weerar ku qaado waxyaabaha jirka soo galay ama jirka soo weeraray. marka falgalkaas ayaa loo yaqaanaa xasaasiyad. sida caadiga ah habdhiska difaaca jirkeena oo loo yaqaano immune system wuxuu noo qabtaa inuu naga difaaco waxyaabaha jirka soo weeraray. waxyaabaha jirka soo weeraro waxaa loo yaqaanaa antigen. waxyaabahaasi marka waxaa ka mid ah bacteria, virus iyo wixii la mid ah. marka xaaladda aan hadda ka hadlayno ee xasaasiyadda waa marka uu khalkhal ku yimaado habdhiska difaaca jirka. marka waxyaabo oo caadi ah ayuu jirka wuxuu qaadanayaa in ay jirka soo weerareen. marka waxyaabahaas ayuu jirka la dagaalamayaa. tusaale ahaan cunto aad allergy ku leedahay ama cunto aad xasaasiyad ku leedahay ayaa isticmaashay. marka jirkaada markay gasho habdhiska difaaca jirkaada wuxuu qaadanayaa waxaan inay jirkaada soo weerareen. marka wuu la dagaalamayaa. dagaalkaas meesha ka dhacayo waxaa ka dhacayo falkaas ayaa loo yaqaanaa xasaasiyad ama reaction ayaa ka dhacayo. reactionkaas ayaa u bixinay wax loo yaqaano allergy ama xasaasiyad. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa sababo ama maxaa keeno xasaasiyadda. waxyaabaha xasaasiyadda keeno way ku kala duwan yihiin dadka. waxyaabahaasi waxaa ugu horeeya number 1 dawooyinka. dawooyinka qaar ayaa keeno xasaasiyadda. dawooyinkaasi waxaa ka mid ah dawooyinka qalajiyaasha ah ama wax loo yaqaano antibioticska. gaar ahaan dawada loo yaqaano penicillin oo loo isticmaalo in lagu daweeyo caabuqyada. sidoo kale waxyaabaha ay dadka allergy-ga ay ku yeelan karaan ama xasaasiyadda ay ku yeelan karaan waxaa ka mid ah number 2 cuntooyinka qaar. cuntooyinkaasi waxaa ka mid ah caanaha, lowska, ukunta iyo sidoo kale malayga. guud ahaan cuntooyinkaas iyo cuntooyin ka badan ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka inta badan ay ku leeyihiin xasaasiyadda. sidoo kale waxyaabaha kicin karo xasaasiyadda waxaa ka mid ah waxyaabaha carfaya oo kale sida barafuunada oo kale. guud ahaan way badan yihiin waxyaabaha kicin karo xasaasiyadda. sidaan hore soo sheegay dadka way ku kala duwan yihiin oo qof walba waxba u daran. marka waxyaabaha ku kicin kara qofka xasaasiyadda way ku kala duwan yihiin dadka. haddaba waa maxay calaamadaha lagu arkayo qofka leh xasaasiyadda? calaamadaha lagu arkayo qofka leh xasaasiyadda waxaa ka mid ah indhaha oo guduud noqdaan. sidoo kale inay barar iyo biyo ay ka imaadaan. sidoo kale calaamadaha lagu arki karo qofka leh xasaasiyadda waxaa ka mid ah qofka inuu cuncun ka dareemo maqaarka. sidoo kale inuu barar ka dareemo indhaha, lugaha iyo sidoo kale fururyaha. intaasoo xubnood ayuu ka dareemi karaa barar ama wax loo yaqaano angioedema. calaamadaha qofku isku arki karo way badan yihiin. marka waxyaabaha qofku isku arki karo waxaa ka mid ah qunfac, hindhisyo iyo madax xanuun. intaasoo calaamad iyo ka badan ayuu isku arki karaa qofka leh xasaasiyadda. haddaba sidee ayaa loo daweeyaa xasaasiyadda ama waa maxay xalka qofka leh xasaasiyadda? marka hore waxaad ku daweey kartaa xasaasiyadda inaad ka fogaatid waxyaabaha kugu kicinaya xasaasiyadda. tusaale ahaan haddii ay kugu kiciso xasaasiyadda ukunta inaad gebi ahaanba iska dhaaftid isticmaalka ukunta. haddii xasaasiyadda ay sii jirto oo qofkan iska dhaafay waxyaabaha ku kicinaya xasaasiyadda, qofku wuxuu isticmaali karaa dawooyinka loo yaqaano antihistamine drugs. dawadaasi waxaa ka mid ah dawada loo yaqaano lefadrin oo ah dawada shaashadda idinka muuqato. dawooyinkan aan sheegnay oo loo yaqaano antihistamine drugs waxay u shaqeeyaan in ay hoos u dhigaan shaqada habdhiska difaaca jirka. marka shaqada unugyada difaaca jirka markay hoos u dhigaan waxaa yaraanayo ama qofku waxaa ku yaraanayo xasaasiyadda. laakiin intaadan qaadanin dawadan waxaan kugula talin lahay marka hore inaad tagtid dhakhtar kadibna baaritaan dhiiga ah soo martid si aad u qaadatid dawadan. sababtoo ah haddii aadan qabin xasaasiyad oo aad qaadatid dawadan waxay kugu keeni kartaa saameyn halis ku ah jirkaaga. dawooyinkaas soo sheegay waa muhiim, laakiin mar walba waxaa ka muhiimsan inaad ka fogaatid waxyaabaha kugu kicinaya xasaasiyadda. waxaana kugula talin lahaa inaad baaritaan dhiiga ah soo martid si loo hubiyo inaad qabtid xasaasiyadda intaadan qaadanin dawadan.
halkaas ayaan kusoo koobaya muuqaalkii koobnaay ee aan kaga hadlay xasaasiyadda, waxyaabaha keeno iyo sida loo daweeyo. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan, waxaan kuu rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.